dhowr nooc sahan badan afar sahan kii hadda u dambeeyo leegu qabtay oo saddex sahan sameeyay saddexdii sahan markaan sameeyo ka tagaa leegu dhahay meesha ka dheeraaw intaasaan sameyn jiray kan waa shabaab cabduqaadir abuukar shaacir waxa uu ka jawaabayaa kaalintii uu ku lahaa ficiladii wuxuusnimo ee ka kala dhacay magaalada muqdisho 13 bishii saddexaad ee sanadii 2017 qarax ka dhacay afaafka hore ee hotel wehliye wixii xilligaasi ka dambeeyay ciidamada amniga dawladda federaalka Soomaaliya ayaa hayay xogta dhagarqaba cabduqaadir abuukar shaacir oo ka soo muuqda kaamirooyinka qarsoon oo dawladda Soomaaliya mas'uulka ka tahay kuwaasi oo lagala socdo dhaqdhaqaaqyada amniga dalka cabduqaadir ma joojin dhagartiisa ee waxa uu mar kale sii wada leynta dadka aan waxba galabsan iyo beegsiga goobaha dadka ay isugu yimaadaan shantii bishii afraad ee sanadii 2017 ayuu hordhigay gaari ay ka buuxaan walxaha qarxa afaafka hore ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha sidoo kale waxa uu qayb ka ahaa qarax ka dhacay baar Itaaliya 8 bishii sanaad ee sanadkaas nasiib wanaag cabduqaadir abuukar shaacir ayaa gacanta ciidamada amniga soo galay isagoo oo wada gaari qaraxa oo la dhigay meel kaabiga ku haysa XNA xaruntii korontada dawladda dhexe ee degmada Xamarweyne waxaana ciidamada amniga u suura gashay inay qabtaan isagoo ku guda jira shaqadiisa dhagridda balse aan xilligaasi wax khasaare ah uusan geysan qaraxaasi maadaama ciidamada amniga ay fashiliyeen dhagarta argagixisada shabaab cabduqaadir abuukar shaacir ayaa ku biiray kooxda shabaab Oktoobar 2016 inkastoo uu sheegay inuu ahaa faryaamo dictor daaweeye xanuunada caruurta daaci dadka ugu yeera diinta haddana waxaa ka muuqata inuusan ahayn dhalinyaro la marin habaabiyey balse uu ku qanacsanaa daadinta dhiigga dadka muslimiinta ee aan waxba galabsan 2 jeer ayuu u baxay safar qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose mid ka mid ah waxa uu ku soo qaatay sahanka halka safarkiisa labaad lagu siiyay casharro ay ka mid tahay yareynta la macaamilka dadka iyo mahad celinta uu ku mutaystay daadinta dhiigga shacabka 22 bishii 6 2017 ayay xafiiska xeerlaalinta weydiisteen garsoorka ciidamada qalabka sida in loo gudbiyo xabsiga dhexe 40 jirkan ayaa maxkamadda ka soo muuqday xilliye kala duwan iyadoo ugu dambeyntii maxkamadda darajada koowaad ku xukuntay dil toogasho ah 6 bishii 12 ee sanadii 2017 ugu dambeyntii maanta ayaa lagu fuliyay xukunkii dilka sida uu sheegay warbaahinta gaashaanle sare Cabdullaahi Buula Kamey xeerlaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida waxaana ka mid ahaa goobihii la qarxiyay ee uu soo sahmiyay taariikhdu markay ahayd 13 bishii 2017 qaraxii ka dhacay afaafka hore ee hotel wehliye halkaasoo ay ku geeriyoodeen 10 ruux kuna dhaawacmeen 17 ruux oo kale b taariikhdu markay ahayd 5 bishii afraad 2017 wuxuu geeyey baabuur saaruf ah oo ay ka buuxaan walxaha qarxa makhaayad ka soo horjeeda wasaaradda isboortiga agaarka xaruntii wasaaradda amniga qaraxaas oo ay ku geeriyoodeen 9 ruux kuna dhaawacmeen 10 ruux oo kale sidoo kale wuxuu soo sahmiyey qaraxii ka dhacay baar Itaaliya taariikhdu markay ahayd 8 bishii shanaad 2017 halkaasoo ay ku geeriyoodeen 7 ruux kuna dhaawacmeen 11 ruux oo kale d taariikhdu markay 15 bishii shanaad 2017 ciidamada amnigu waxay ku qabteen cabduqaadir abuukar shaacir maxamed isagoo wada gaarigii qaraxa ahaa ee ku qarxay degmada Xamarweyne gaar ahaan XNA dambiile shabaab cabduqaadir abuukar shaacir maxamed waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah maanta oo ay taariikhdu tahay 24 bishii 12 2018 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa wabillahi tawfiiq qaybaha kala duwan ee ciidamada ayaa saf u galay halka fulinta toogashada waxaa goobjoog ahaa gudoomiyayaasha heerarka maxkamadda ciidamada qalabka sida xeerlaalinta ciidamada saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada amniga maamulka dawladda hoose ee Xamar iyo dadyo kale cabduqaadir ciise warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho